barnaamijka sheergareeya odaygii Axmed Madoobe ahaa wuu dhex yaalaa dhex fadhiya ma maqli jirteen dhex fadhiya wuu dhex fadhiya baxar sitin waxa la yiri ku cimro qaado facaa inaad ku cimro qaadato ninka la yiraahdo daniyow inaad ku cimro qaadato ayaa laga sugayaa haddaad ku cimro qaadan weydo bartaada lagu iman odaygii raaya Axmed Madoobe faaladiisa aan idin wado xaar buu ku fadhiyaa maanta oo dhan wuu cabaadayay cabaadkiisa cabaad ka batay Soomaaliyeey dawladdu waa inay ciidamada kala noqotaa ay kala noqonaysa ma Kenya ma hadda meeshu waa Soomaaliya waa Kismaayo dawlad kale waxay dhigi kartaa ciidamada naga noqo marka laga xoog barto tan Soomaali baa iskale kuwa ku soo socdaana waa Soomaali hawlwelin marka iska soo wareeji adeerado aayar soo dhiib hal lagu maxkamadeeyo oo golow in badan baad soo raaxaysatay markan waa markii adiga lagu ciqaab lahaa waa markii lagu amal weydiin lahaa waa markii lagu arkay adeer way isku dhamaatay wiilasha yaryar ee wadanka u kacay ilaahay ha quweeyo horta dhakada ku soo wada dhaga nin walba oo edab darrada 30 sanadood inagu waday dhakada ku soo wada dhaga war dawladii Maxamed Siyaad Barre anagana lagu riday wayna isticmaalaan maskax ma aan lahayn waanu yaryareen aqli ma aan lahayn laakiin maanta ninka 30 jirka ah deeyaan lagu sheegin anaga midina loo sheegay jannad galaysan Maxamed Siyaad Barre hadda ridaano 30 sanadood god lagu sii wado Maxamed Siyaad Barre wixii riday anaga ahaayeen oo calim hadi iyo caydiid iyo ay u isticmaalayeen marka iyaga ma ahayn wixii riday dhalinyaro Soomaaliyeed oo 30 jira oo ciida ay ka hoos mariyeen bay ahaayeen maantana wiilka dhalinyarada ee 30 jirka ayaa waxa loo sheegayaa inaan dawlad jirin hadii dawladdan la rido mid kale oo ka udgoon badan iyo mid kale oo jannada geynaysa oo imaanaysa ma jirto wax imaanaya mala 30 sano kala hoos socon doonta ku adkaysta Soomaaliyeey meesha aynu taaganahay waa meesha ugu fiicnayd 30 sanadood oo wadankeena ay colaad iyo dhibaato iyo rafaad u ka jiray 30 years meesha ugu fiicnayd aynu taaganahay maanta gacmaha aan isqabsano shantan nin ee umada dhibaataysay ee silaca ku haysa ee rafaadka ku haysa ee hooyooyinka Soomaaliyeed inay harsadaan u diiday inaynu iska soo qabanno aynu u midayno maanta waxaan hubaa meesha la yiraahdo Puntland qof walba oo Puntland ku nool wuxuu naawulayaa ama sugayaa inay dawladda Soomaaliya xaqooda u soo dhaqaaqdo inay dawladda Soomaaliya Puntland ay u dhaqaaqdo ayuu sugayaa askari ha ahaado shicib ha ahaado xildhibaan ha ahaado qof kale ha ahaado wasiir ha ahaado dadku dawladda Soomaaliya ayay sugayaan waa mid Kismaayo ka taagan oo kale waxa la hubaa maalinta garoowa lagu dhawaado dadkoo dhan inay ka mid noqonayaan dawladda Soomaaliya laakiin waa la kala qoqobay qori baa lagu haystaa xoog baa lagu haystaa Maxamed Siyaad Barre maba ahayn dictatorada dani iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe labada dictator haddaan la iska qaban umada Soomaaliyeed ay horana looma soconaayo dibna looma noqon karo god iyo boholayd ka dambeeya iska qabta kuwii diinta ku qaraaban jiray way dhamaadeen ahlu sunna way dhamaatay al-shabaab wax la yiraahdo way isku dhamaatay Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka la yiraahdo Sheekh Shariif intaas ayaa maanta al-shabaab kala ma jirto way dhamaatay wax al-shabaab la yiraahdo Soomaaliyeey yaan la idinku qaraaban yaan la idinku sameeynin kala qaybin yaan la idin isticmaalin waxaad sameeysan qof walba oo Soomaaliya dawladda maanta jirta dhinaca ka qabsado hana support gareeyo iyada meel barwaaqo oo higsi la geynaysa libaaxyada inoo kacay haddaynan inagu garab istaagin wallahi meel ma gaarayaan waxaynu aadaynaa meeshaynu ka nimid 30 sano ka hor meeshaynu ka nimid ayaynu dib u noqonaynaa ma waxaan abda ka sugaynaa nimanka maanta Ankara fadhiya ee la ciidan baan sameysanaynaa ma kuwaasaynu abda ka sugaynaa ma kuwaasaynu sharaf ka sugaynaa ma kuwaasaynu dadnimo ka sugaynaa xoog bay rabaan inay nagu qabsadaan kana yeelimayno waan diidnay in xoogna lagu haysto waan diidnay Sheekh Shariif oo madaxaaga gali ciidamada aad sameysanaad sheegayso
waa dhalinyaro Soomaaliyeed hal cunuga adigu aad dhashay xitaa ku soo dirmaysid wallahi laba ilmahaaga kamid ah hadaa ku soo darto anaa ku soo garab istaagay haddaad laba cunugood dhashay Sheekh Shariifow aad ku soo darto ciidamada aad ku faanaysaad leedahay waan samaysanayaa anaa ku soo garab istaagay been kuma sheegay qorigan ku qaadanaya meel alla meeshan jooga tigid anaa soo goosanayna ku iimaanay waa ka amar qaadan laba cunugo adigu aad dhashay iyo laba walaalka dhalan ku soo dar waa ka qaadan markaas laakiin inaad wiil Soomaaliyeed oo 30 jira oo dhaxal leh oo duni leh oo guur leh oo dhaqan raba oo nolol raba oo mustaqbal raba inaad maanta tiraado askari baan ka soo dhiganayaa dawladdan kula dagaalamaya nafarka yeelay taas malaha ku daalin marka waxaad yeelaysaan ummadda Soomaaliyeed Axmed Madoobe iyo nin walba oo qabiil daba taagan sheekadiisu way soo maratay ma maqli jirteen way maratay maalmaha soo socda ugu yaraan anigu waxaan u qabtay 10 days 10 cisho ka bacdi oday Axmed Madoobe iyo Jubbaland iyo Kismaayo Jubbaland gacantiisa way ka dhamaatay horta isagii Jubbaland way kala dhamaadeen magaalada Kismaayo la yiraahdo iyo Axmed Madoobe way kala dhamaanayaan awooddaasna Ilaahay baa na siiyay Ilaahay baa na quweeyay Ilaahay baa wax walba na siiyay alxamdulillah inta niraahno aynu iimaansanno kuwa maanta inoo talinaya cabsanina warada cabsanaysan xitaa aniga ii sheer gareeya ana xitaa shaatiga soo siibtay in la aqoonsado oo la yiraahdo wallahi waa kii xabada lagu dhufto ninkii xabada ku dhufan kara ha ku dhuftay ii sheer gareeya idinku dambi kuma liidin ninkii aniga idili kara ha idilo ii sheer gareeya yaan been leedin sheegay xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay inay Soomaalinimadii soo noqotay in qabkii Soomaaliyeed soo noqday in ay wax walba gacanteena ku soo noqdeen oo ay ka dhiman yihiin maalmo yar 30 sanaynu soo sabarnay maalmo yar inaynu sabri weyno way noo doqoniimo madaxda Soomaaliya waxaan u sheegayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayrow waxaan idin sheegayaa in aad wax allaale iyo waxaad samayn kartaanba war haday noqonayso xitaa afgambi adalka ku qabataan kabacdi aad xukunka dadka shacabka ku soo celisaan hadii laga maaro waayo laakiin waan idinka baryeena waan idinka codsanaynaa cadowga ha nooga tagina bartaad haysan ka wada bartaad kaga taagantihiin kaga wada haday noqoto inaanu soo baxno oo aanu tigir soo goosano oo aanu Soomaaliya nimaadno oo aanu qori idin la garab istaagno wallahi waa sameeynaa oo billaahi oo tallaahi waa sameeynaa shalay Maxamed Siyaad Barre anaga ridniyo odayga qabla iyo Cali Mahdi iyo Bururuc iyo Caydiid ma ridniyo been kuma sheega anaga ridni anaga lagu dumiyay maantana anaga diyaar ku ah dalka inaan kula difaacno dalka inaan kula qabanno ummadda inaan kula badbaadino anaga diyaar u amaanto waa soo baxayna diyaaradaha soo raacayna tigidha soo goosanayna boqolaal kun oo dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa igu raaciyaan u malanaya war inta igu ragayahay sax waayo soo qora laakiin alxamdulillah maanta dhalinyarada Soomaaliyeed kulligood waxay u badatay nabad iyo nolol profiilada dadka waxa u saaran waa nabad iyo nolol iyo madaxda Soomaaliya Allahu akbar waan guuleysanay 2021 ka diyaar waa soo noqonayna taas meel baan u saaranay 45 milyan ee dollar ee bangiga Soomaaliya maanta ku jirta ayaanu ku qaadanay dawladnimada nabad iyo nolol baanu ku qaadanay sheer gareeya barnaamijkan kor taagnaa in hadaba waxaan noo kor dhubantii na taageera oo noo support gareeya oo na taageera sheer gareeya barnaamijka inta nabad iyo nolol taageersanay kulligiin ku qabto horta si sheer gareeya barnaamijka ummadda Soomaaliyeed ay xaqiiqadu waxay tagtay in dalka Soomaaliya uu fariin fiican maanta bixinayo horumarkiina la gaaray loona jeedo reerka meesha lagu furayana ay barwaaqo tahay ayaa loo dhawaaday waana la joogaa inta inaga dhimanna waa dhameystiranaynaa ii sheer gareeya barnaamijka tala iyo tusaale qof walba oo Soomaaliya waxa laga rabaa inuu inta barnaamij sameeyo ama xoog sameeyo ama hanti sameeyo ama uu sameeyo wax kale oo uu ku support garoon karo Soomaalinimada iyo dawladnimada inuu sameeyo meel allaale iyo meeshaad ka taageerto dalkaaga wax uga qabatay hadal hadaad ku taageerto
haddaad lacag ku taageerto haddaad xoog aad ku taageerto haddaad ku taageerto inaad qoriga qaadato aad dhufayska gasho waa midka ugu muhiimsan wiilasha dhufayska ku jira waa qolada inoogu qaalisan ee dhiigooda bixinaya inteena kale waxa la inooga baahan yahay inaynu si fiican ula hadalno dadka waanino wacyi gelin sameeyno dhalinyarada Soomaaliyeedna aynu dib soo celino odayaashan beeshinka ee loogu talagalay inay beeshin qaataan waqtigoodii gabay aynu dhinac iska marsiino dalkeena maanta waad aragteen waxa maamula waa wiilal dhalinyaro oo caaboon waa dhiilal shabaab ah waa wiilal wax bartay waa wiilal aqli leh waa dad la soo xulay sideedabana markaad qof aqli leh oo aqliga u saaxiibka ah madax aad ka dhigato wuxuu ku keenayaa dad aqliga u saaxiiba dhalinyaro buu ku keeni dhalinyaro wax og damiir leh damqanaysa war 30 sanadood odayaal 90 jiro 80 jiro 70 jiro 60 jiro baan soo hor dhoobnaaba seekadu midii hore waa ka duwanta dad caafimaad qaba iyo dal caafimaad qaba ayaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed aan keensanno aqligeena aan ku shaqeyno dhalinyaranimada aan ku shaqeyno aynu dadkeena wacyi gelino qof walba oo Soomaaliya waajib ayaa ka saaran dalkiisa meeshaad ka taakuleen karta ka taakuleen afku taakule dhiig ku taakule dhaqaale ku taakule adduun ku taakule sidaad ku taakuleen karta ku taakule wiilasha xukunka inoo haya maanta ee dunida ina tusiyay waxa aynu ka nahay dunida ina tusiyay iyaga aynu garab istaagno dunidu waxay ka marxaanti kacday adduunku wuxuu ka marxaanti kacay dawladda Soomaaliya in ay maanta marayso heerkii ugu macaanaa ee ugu fiicnaa ee ay 30 sano abid gaarto marka yaan laga dhaadhicin oo lagu sheegin dawlad malihi dawlad baan leenahay dhalinyaro ay noo kacday ilaahay baa in haleelsiiyay 30 sanadood baynu ilaahay baryeynay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu inaga aqbalay wuu inoo aqbalay baryadeeni wuu aqbalay yeynaan iska daadinin marka caanaha iyo nabadda ilaahay maanta uu ina siiyay oo inagu galaday yeynaan iska daadinin nabad iyo nolol bay waxay ula baxeen nabar iyo naxdin idinkay nabar iyo naxdin idinku tahay kuwa Soomaalinimada diidan ee qaran dumiska ah idinkay nabad iyo naxdin idinku tahay Cabdiraxmaan Cabdu Shakuur cayayaan buu yiri cayayaanka Facebook war anagu cayayaan mani laakiin cayayaan yaa u weyn barambara u weyn adigu barambara tahay qaba ummadda Soomaaliyeed cayayaan ma laakiin adigu barambara tahay barambaro Cabdiraxmaan barambaro Cabdiraxmaan barambaro ummadda Soomaaliyeed cayayaan ma dhalinyarada Facebook dawladda Soomaaliya ka taageertana cayayaan ma war adiga barambara ah adaa barambara ah oo musqul dhex taagan oo qaran dumisa oo dawladnimo nacab oo ummadda Soomaaliyeed xadgudub iyo urku ah ka qaadan meeno inaad noo sheegto marka cayayaan anagu cayayaan ma nihin saaxib marka waxaad yeelaysaa niyahow xilligiini wuu isku dhamaaday u soo diyaar garoowa xisaab iyo maxkamad iyo in madaxa la idinka soo qabto oo aad kurkiina in la caseeyo u soo diyaar garoowa wax kale idin ma harin ninka qoriga iska dhiga maanta wiilasha lagu go'doonsaday magaalada la yiraahdo Kismaayo iyo Garowe wiilasha ku go'doonsan waxaan hubaa inaysan xor ahayn intooda badan laakiin ninkii dani ku soo raaca qabiilow Soomaali baad la dagaalamaysaa ogow ninkii qori ku soo raaca ninka la yiraahdo daniyow waxaad u diyaar garowdaa inaad Soomaali la dagaalamayso Axmed Madoobe ninka qoriga la garab taaganow waxaad ogaataa inaad Soomaali la dagaalamayso ee aadan qabiil la dagaalamin wax qabiil la yiraahdo way isku dhamaatay Soomaaliyo wada socota oo ciidankoodii iyo dadweynahoodii ah ayaa Axmedow kugu soo socota wiilasha walaalihi anigu Axmed lama hadlayo waliba waxaan la hadlayaa wiilasha dhalinyarada ee la marin hawaabiye la qalday war haday daruufi kugu hayso ka soo bax hadaad qabiil ugu dagaalami rabta laakiin ka joog naftaadu waxay ka muhiimsan tahay boqol Axmed Madoobe naftaada ka muhiimsan ee ka joog
haddiise lagugu yimaado adoo dagaalamaya asxaan laguma samayn doono nin allaala iyo ninkii isagoo qori haysta loogu yimaado waa madax goysmo intaan lagu soo gaarin hubka iska dhig haddaan idin wacyi gelinaynaa ciidamada soo socda ee Harimacad iyo Gorgor ma istaagayaan dalkooda ay xoreynayaan dadkooda ay xoreynayaan marka u diyaar garow in aad la dagaalanto haddaad la dagaalanto my brother waad dhimatay ogow waxba ka qaadi maysid waxba uma dhibaysid Soomaali oo dhan waay 30 sano ay Soomaaliya dagaalamaysa haddii qabiil wax ka qaadayo haddaad qabiil wax ka qaadayso waa la arki doonaa meeshan qabiil ma soo socdo haddaad qabiil la dagaalami jirto madaxa ka haysan jirtay qabiil ma soo socdo qaran Soomaaliyeed baa kugu soo socday isu diyaari dhalinyarada la qalday waxaan u sheegayaa inay isdhiibaan oo aysan dhiigooda gelin oo uuna dhiigooda daadan oo ay dawladooda isu dhiibaan oo ay ogolaadaan Soomaalinimada Axmed Madoobe Soomaalinimo ma ogola inay ummadda Soomaaliyeed israacdo wuxuu dabada ku haysto waa Kenya waa keligii taliya loo taliyo ummadda Soomaaliyeed ee degan Kenya dhibaatada lagu hayo waad ogtiin reer Kismaayana taasun baa lagu hayaa qof raali ka ah ma jiro Axmed Madoobe laakiin xoog baa lagu haystaa ummadda Soomaaliyeed dib la idin sii haysan maayo reer Kismaayo waan idin soo soconaa waa la idin soo socdaa cadawga iyo heeriyada cadawgana waa la idinka kor qaadayaa insha Allah maalmaha soo socda ayaa la idinka kor qaadayaa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doonaa Axmed Madoobe Kenya ka timid iyo Ethiopia waa u noqonaysaa saaxib markaanu anagu damacnay inaan ku soo xoreyno ayaan ku soo xoreynaynaa Kenya Ethiopia ka xoreynaynaa laakiin horta waa inaad ku noqotaa Kenya ay ka tagin dabada sii qabso billahi calaykum Soomaali ka dhamow qabiil kama shaqeynayo urur diimeed kama shaqeynayo argagixisa kama shaqeynayso sheekooyinkaas waa isku soo barxidmeen waa jarantahay sheekadaas waa la soo afjaray waxaan idinku bishaareynayaa oo aan idin sheegayaa ciidamada Axmed Madoobe ee Buulaxaawo iyo nawaaxigeeda intooda badan inay isdhiibeen kuna soo biireen dawladooda dadkoodana dhinac ka soo raaceen ayaan ummadda Soomaaliyeed idinku bishaareynayaa sidii galmudug ay nabad uga dhacday Buulaxaawo nabad uga dhacday iyo nawaaxigeeda waxa aan dib dambe looga cabsan doonin cadawga Soomaaliyeed ee dhibaatada ku hayay reer Buulaxaawo way isku dhamaadeen way dhamaatay way maratay waxa loo socdaa hadda waa Doobley iyo Kismaayana maalmaha soo socda gacanta lagu dhigi doonaa Axmed Madoobe waa la soo qaban doonaa jeelka la dhigi doonaa maxkamad baa la saari doonaa wixii ku soo baxay ee xaq ee ummadda Soomaaliyeed ku yeelato waa laga gudi doonaa qabiil waxba kama celin doono qabiil buu dabada kula jiraa laakiin qabiil waxaan tusinaynaa inay kala dhaqaaqaan maalinta ciidamada qaranka Soomaaliyeed Harimacadku ay ku dhawaadaan magaalada Kismaayo in la kala yaacaan idin baraya lama soo hortaagnaan karo 3 sanadood dhaqaale aad u adag baa ku baxay ciidamada Harimacadka ummadda Soomaaliyeed 3 sanadood bay wax allaale iyo waxay haysteen galiyeen ummadda Soomaaliyeed barnaamijka sheergareeya iswada gaarsiiya si fiican baynu u baashaali doonaa in walba xaalad walba meel walba ay marayso dalka Soomaaliyeed waynu la soconaynaa waynu subood gareynaynaa qof walba oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inuu isku xilqaamo oo in ka qaato dhisida dalkiisa qayb ka qaato meel un ku dhig oo qayb ka qaado ha noqon kii dalkiisa dumiyay horaanu dalkayaga u soo duminay tii nagu dhacdayna waanu ogeyn waanu eednay ilaahayow naga cafi ilaahayow noo dambi dhaaf dalkayaga dadkaanu qalad ka galnay ilaahu noo dambi dhaaf inta dhimanna ilaahu noo dhamaystir sheergareeya barnaamijka hala sheergareeyo hala isgaarsiiyo waxaan u baahannahay dhalinyaro badan oo kacda oo dalka iyo diinta iyo hooyooyinka iyo caruurteena u kacda oo dalka badbaadisa oo ciidamada ku biirta oo ku biirta wax walba oo dalka laga qabanayo ku biirta loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed welcome soo dhawaada way isku dhamaatay xilliga qabiilka haddii uu qabiil madaxa kaaga jiro nin Soomaaliyeed iska saar qabiilka haddaad nin Soomaaliya cuqdad u qabtay oo aadan ogeyn waxaad cuqdad ugu qabto iska cafi
walaalkaa weeye dhinac ka raac ummadda Soomaaliyeed qoriga iska dhig qalinka qaado qoriga iska dhiga qalinka qaata ummadda Soomaaliyeed waxa waa laga ilbaxaa 30 sanadood baynu dagaalameynay wabillahi calaykum qoriyaha iska dhiga dawladnimada taageera nin walba dantaada u shaqo tag dalkaaga wax u qabo diintaada wax u qabo markaas aad dad noqon kartaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة الكاس إيجا إكتاي وأنا يوحسو شيء وإنه سو شيء وحين يسو شيء كرنو أنت قاعدة إلهي هي نقدمه أنت كو عمل فشنا إلهي هي نقدمه